nool magaalada ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley waxay cadeeyeen mowqifkooda ku aadan mar labaad iyo Maayar Aamiin kulligan kulmiyaane kulmiye ugu rida kulligan kulmiyaane kulmiye ugu rida kulligan kulmiyaane kulmiye ugu rida shacbiga ku nool magaalada ganacsiyeedka Wajaale ee gobolka Gabiley ayaa saaka waxay taageeradii ugu Balaadhnayd tan iyo intii uu ololaha doorashooyinka isku sidkan socdeen u muujiyay musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley Maayar Aamiin Cumar Cabdi oo ah musharax u tartamaya doorashada golaha deegaanka degmada Gabiley kulligan kulmiyaane kulmiye ugu rida kulligan kulmiyaane kulmiye ugu rida bulshada ku nool Wajaale ayaa iyaga oo muujinaya taageeradooda ku aadan in ay mar labaad codkooga siiyaan musharax Aamiin Cumar Cabdi waxa ay dowladtuskii ugu Balaadhnaa ku soo bandhigeen fagaaraha khayriyada magaalada Wajaale ee gobolka Gabiley bulshadan kumanaanka ah ee taageerada u ah musharax Aamiin ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ay ku cadeynayaan in ay dhab ka tahay in ay mar labaad codkooga siiyaan musharax Aamiin Cumar Cabdi maayarka magaalada Gabiley isla markaana sanduuqa codka ku hubsadaan dharaarta doorashada lambarka codeynta musharaxa oo ah 201 aba 201 musharax Aamiin Cumar Cabdi maayarka magaalada Gabiley oo taageerayaashiisa goob fagaaraha kala hadlay ayaa yiri Allahu akbar Soomaaliya ha guuleysato xisbiga kulmiye ha guuleysto musharaxiina 201 ha guuleysto ilaahay baan subxaanahu wa ta'aala uga mahad celiyeynaa inoo suuro geliyay inaynu isugu soo baxno si nabadgelyo ah isla markaana aynu ku dhamaysano si nabadgelyo ah walaalayaal waxaynu ku guda jirnaa maalintii labaad ee isu soo baxyada xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye uu u lahaa oo aynu maanta kaga qayb gelinay magaalooyinka Kalabaydh iyo Wajaale iyagoo taageerayaasheenii sharafta lahaa ayaguna isugu soo baxeen dhammaan xafiisyadooda kala duwan ee ku yaala magaalooyinka gobolka iyo tuulooyinkiisaba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan taageerayaasha gobolka meel ay joogaanba waxaan idinka mahad celinayaa waqtigiina sharafta leh waxaan idinka mahad celinayaa tamartiina waxaan idinka mahad celinayaa taageeradiina hiilka leh ee kalgacalka muwaadinimada iyo dareenku ka muuqdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal waxaynu galaynaa 31 May doorasho taariikhi ah oo qarankeena guul weyn ugu fadhida ilaahay waxaynu weydiisanaynaa 31 May in doorashadaas si nabadgelyo guud ahaan gobolka oo dhan iyo dalka Soomaaliland ay noogu dhacdo doorashadaasi oo noqon doonto doorasho taariikhi ah oo ay magaceeda leedahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye oo garwadeenka u yahay mudane Muuse Biixi Cabdi waxaynu u rajaynaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye musharaxiintaba guul waxaynu gaar ahaan rajaynaynaa innaga oo mabda'eenna iyo aragtideennu ay ku dhisan tahay waxqabad iyo horumar aynu doonayno inaynu halkaa ka sii wadno horumarkii kala duwanaaynu gobolka ka hirgelinay muddadii aynu shaqaynanay innagoo 2012 ku tartanay astaanteena 201 ilaahay nagu guuleeyay inoona suuro geliyay wax badan oo baylahda gobolka uu leeyahay anigoo kaashanaya golahayga sharafta leh ay halkan ka joogaan hadda Cabdi Xabeeb Cumar iyo Nimco oo dhammaantood aan uga mahad celinayo taariikhda wanaagsan ee gobolkoogii runtii ku soo kordhiyeen waxaan walaalayaal rajaynaynaa inaynu gobolkeena horumarkiisa halka ka sii wadno oo aynu midnimada gobolka iyo isku duubnaanta shacabkeena iyo wada jirka shacabkeena iyo horumarinta bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmooyinkeena iyo tuulooyinkeena inaynu halka ka sii wadno inaga ballanteenu waa
iyo ilaahay waxaan rajaynaynaa guul koob iyo soddonka May ilaahay inuu guuleeyo waxaynu guntiga dhiisha iskaga dhiganaa gobolka cagaaran oo qurux badan oo ka horeeya gobolada kale Soomaaliland balanteenu waa 201 iyo koob iyo soddonka May aad baan idinku bogaadinayaa idinku mahad celinayaa waqtigiina iyo taageeradiinaba waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed oo warkurbeynta SBC Gabile